الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشان بركيسان إلهي نغو فرض يالي oo intii badnayd aan soo soonnay wax yar oo maalmaahina ay ka hareen maxaa la rabaa qofku inuu ka kasbado bishaan sababaha ugu waaweyn oo loo jireeyay soonka waxa weeyaan inuu qofku ka kasbado taqwa Allah ilaahi cabsidiisa subhanahu wa ta'ala in iimaankiisu uu ziyaado taqwadiisu markii hore meeshay joogtay ay ka ziyaado sababaha loo jireeyay siyaamka asbaabahaas kuwa ugu waaweyn waa taqwa Allah bal ahlu cilmigu waxay yiraahdeen wax kasta oo faa'iido ah oo soonka qofku uu ka dhaxlo uu ka helo waxay ka dhalata arrinkaasi uu ka dhalanayaa taqwa Allah ilaahay cabsidiisa waayo qofku markuu soomo oo cunadii uu ka soomay cabitaankii uu ka soomay jimaaci uu ka soomay wixii soonka jabinayo oo dhan uu ka soomay waxa ku abuurmay cabsi ilaahay bisha ramadaan inuuna waxaba cunin ilaahay ka cabsado inuuna waxaba cabin ilaahay ka cabsado cabsi ilaahay ba ku abuurantay cabsidaasi maalmahaas oo dhan way u ziyaadaysaa markii bishaasi ay dhamaato haddii ilaahay ka aqbalay wuxuu haystaa rasiid iyo shidaal fiican iyo sahay fiican oo ka celinaysa inuu dambigi iyo xumaantii ku laabto imisa ayaa hanuunay bisha ramadaan markii ay dhalatay oo ay soomeen ilaahay hidaaye iyo hanuun uu siiyey aynan hore u helin culimada sacuudiga nin ka mid ah ayaa wuxuu yiri habeen baan imid xaramka aniga iyo aabahay iyo awowgay oo isla soconna markaan xaramka u soo dhownahay tahajjud baan rabnaa inaan tukanno waana waqtigii 10kii dambe weey ayaan waxaan aragnay nin gaari u daaran yahay muusiga u shidan yahay oo aad iyo aad muusiga kor ugu qaado codkiisa oo xaramka agtiisa iska ahwaalaysan oo halka taagan oo heesahaya oo heestaas u daaranta markaas aan ku leexdo la hadlay buu yiri waxaana idribu yiri caawo kale waxa la akhriya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ma ahan caawo kale habeen hees iyo muusiga lagu dhafra ma aha khalqiga ilaahay xaramkii bay ku qulqulahayaan aduguna halkaana muusiga dhageysanaysa صلاة آذن حاضرها استغفار آذن إلهي ويديسنها أحواش أدواس مركز واحد نقول عليه يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني دعائي وحفظي مركز يقول كل علي وحفظي وأن كتجيبي هاستي والدميي قلبي سا إلهي النور دقيه الدايو معلمه قد منا أي عبادة استي أو صامي مدة 10 سنة كبعدي هيا وحو يري أنا ميل درسي محاضرة كتشيدنا هيا و10 بحنا هيا waxa ay min dhalinyaro ah oo daruusta ka soo qayb galay oo ay ka muuqato cilmiga nuurkiisa oo ka muuqdo oo sunnada iyo khayrku oo ka muuqda yimid markaas wixii ma garanaysaa mada ayribi waxaan ahay ninkii habeenkii Allah hadashay oo ducada xifdisay baan ahay ayadii ba ilaahay hidaaye iyo hanuun igu soo dhiibay bishaan khayrka ay leedahay caadi ma aha waxyaalaha qofku uu kasbanaya waxyaalo aad iyo aad u fara badan weey ilaahay cabsidiisa qofku markuu helo adduunyo aakhira waa u dhameystiray ilaahay waxa uga baqdaa salaadaada oo waqtigeeda ha dayicin jamaacada ku tuko ilaahay waxa uga baqdaa soonkaaga ha dayicin ilaasho ilaahay waxa uga baqdaa maalkaaga xalaal ka soo shaqee حلالنا كبحي إلهي وحا أغبغ ذا أمانوينك إلهي سبحانه وتعالى أما أهات الدين كودن
ama khaas ahaan waxa weeye qaraabada iyo dariska iyo saaxiibada waxa ammaana in kaga kaala dhaxaysa ilaahay uga baq cabsida ilaahay meel kasta ayay gelaysaa walidaalika qofku waxa laga yaabaa inuu jaanib ku fiican yahay khayrka ah laakiin jaanibka kale aakhira uu ku cadaamuto nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay maalinta qiyaama inuu imaanayo nin muflis ah oo aan waxba haysan saxaabadu waxay yiraahdeen muflis markuu nabigu weydiiyay muflis waxa uu naqaanaa nin aan xoolana lahayn maalna lahayn lacagna lahayn waxba aan haysan markaasaa nabigu yiri muflis waxa la yiraahdaa ummadayda nin la imaanaya soon iyo salaad iyo sadaqa badan ayuu la imaanaya wuxuu kaloo imaanayaa dhinaca kale asagoo midkaan caayay asagoo midkaan dilay asagoo midkaan maalkiisa cunay buu imaanaya markaas xasanaadkiisi kan la siinaya oo kan la siinaya oo kan la siinaya markay xasanaadkii ay ka dhamaadaan ayaa waxa weeyaan dambigoodii inta la soo qaada dusha laga saaraya markaas naarta lagu la ridaya ninka isaga oo aakhira imaanaya u fiirso soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii ilaahay waa ka aqbalay waana ku soo baasay imtixaankooda waa ku baas taqibo dhinaca ka ahaa laakiin wuxuu ku dhacay dhinaca mucaamalaadka dadka uu la mucaamaloonayay buu ku dhacay imtixaankii qaybtaas aan xoog badato waxay keentay naarta inuu galo dad badan marka ayagoo soomaya oo salaadaya oo sadaqaysanaya ayaa masna waxa weeyaan ammaanadii iyo waxa weeyaan mucaamalaadkii dadka ayaa aakhira loo soo joojinaya oo ay ku cadaab galayaan marka waxa la rabaa qofku salaada iyo soonka sidoo u ilaalinayo inuu sidaas si lamida u ilaaliyo mucaamalaadka asaga iyo dadka kala dhaxaysa oo dhammaantood ilaahay uga baqa ayaa la doonaya ahlu cilmigu waxay yiraahdaan taqwa allah marka la leeyahay ilaahay cabsidiisa la leeyahay macnaheedu waxa weeye an ta'mala bi ta'ati allah ala nuurin min allah tarju thawab allah bal ufirsu ina taacada ilaahay samaysid oo ilaahay taacadiisa aad ku amal fashido la timaadid adoo waliba cilmi u leh oo cilmi ku sugan ee aynan jahli ka ahayn ilaahay thawaabkiisana rajaynahay saddexda arimood weey cibaadadii baa la imaanaysa cilmi baa u leedahay waa la imaanaysa ilaahay thawaabkiisana rajaynaysa wa an tatruka ma'siyata allah ala nuurin min allah takhafu iqab allah inaad macsida iyo dambiga aad ka tagtid adoo ku sugan cilmi ku sugan oo ilaahay inuu kugu cadaabahayo oo dambi ay tahay og waxaad uga tagaysaan ay tahay ilaahay ciqaabtiisa cabsi ah ka baqays labadaasi markay ku kulmaan dhinaca macsida saas ah uga tagtid daacada ilaahayna sida ula timaadid qofkaasi qof taqi awiya walidaalika biyiri al-imam ad-dhahabi fala taqwa illa bi'amal ilaahay laga cabsadaa ma jirta illa amal fal mooyaan waa in qofku amal fal u la yimaada hadii qofku wax alla wuxuu raba sameeynahayo oo san amal fal sameeynahayn waxa weeyaan taqwadii ma hayo wala taqwa illa bitarawi min al-ilm wal ittiba' taqwa ilaahayna ku suurtoobi mayso amal ku suurtoobi ma hayo illa ilmi ina la timaadid mooyaane iyo ittiba' nabiga aan raacdid si kale ilmiga laftigiisu waxa weeyaan nuxur u yeelan ma hayo ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص انتاس كبعدين وحال ربا عملك يا علمك مركا للتمادد إخلاص يا إلهي درتينو كاي هاي بالله ولذلك وقفك إلهي سي تقوى داس استقامة يتوصناش أيها لا وحرمنا مركا صون كينان جبدا دلن يردا قار أهان سي قوني ما وحي كل من دونا وحي أي كسقنايين ما سوى ويا سيدي أقصو حرادين سوق وحي يالي oo dambiga iyo macaasida aha siday uga soo xaroodeen ayay khayrkaas ku toosnaan doonaan wa inaan ku didaalnaa waxa weeyaa inaan toosnaano saaxiibadii xuma sidii aan uga soo tagnay inaan ku laaban heesihii la dhageysan jiray inaan lagu laaban akhlaaqdii xumayd inaan lagu laaban wa inaan nafteena ku xakameynaa sida soonka wa masaajida loo soo camirahayo markii soonku dhamaado waa inaan nafteena ku xakameynaa duruusta cilmiga ah iyo khayrku meesha uu ka socdo oo qofku uu naftiisa ku laazimiyaa walow layla waahida asbuuci laba habeen saddex habeen ba ha ahaatee inuu darsi soo qaato diini ah maalinkii diin inuu dhageysto inuunan qofku marnaanin ee uusan noqonin ramadaan ka ramadaan
قف إلهي كلي عبد مركز رمضان كمرك لجاره دنبيك كسو حراضة مركو رمضان كل عبد وين وسقفك نقول ذاتك متقين تا وأولياء الله إلهي بان الشيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ذاتك متقين تا وأكرم الناس عند الله إلهي أكتي سكوا وكرام بدنوية إلهي بأرنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتي سكوا إنكوا كرام بدن وكوا إنكوا عبس بدن وحلقة قرطان مرون ونأكسن تقوى إلهي وحلقة لا معية الله إلهي با معي أهانية وحا إلهي معي لا أهانية إلهي واكو تعلانية واكو توسينية واكو هيلينية واكو إلالينية إلهي وحليا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحا إلهي معي لا أهانية دنبي إلهي إنو ضافه حق إلهي إنو كوك لفرية باطل كإنا كالجرتد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وحا إلهي سينا يا قفك متققا إلهي كبقا لباتك كستي عريري كستي همي كستمركو كي ماله فرج با إلهي وغفريا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قفك إلهي كبقا سبحانه وتعالى وحا إلهي ويلي يا مخرج ودباتوين كوغبحه وحنا إلهي كأرزاق يا ميلون نكمل يسنهي وحكوه ليس تقوى إلهي أرمها إن لقوا فضوذيه كو أدون كان إن لقوا فضوذيه كو آخرنا إلهي كو فضوذيه إلهي وحلي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبقى أرنتيس إلهي وحو كدق يا فضيت إلهي وحبك وعصلين معي ما دام آتها يقف إلهي حرير كوللي هي هجاتي إلهي أرمها كو فضوذينيه هداي قولتها ماشى ugu fiican ba ilaahay kaaga sahlay haday adduunyada maal ay tahay meesha ugu fiican ba ilaahay kaaga sahlay haday amalka aakhira ay tahay meesha ugu fiican oo ugu khayr badan ba ilaahay kaaga fududeynaya haday saaxiibo tahay kuwa ugu fiican ba ilaahay kuu fududeynaya haday daris tahay kuwa ugu wanaagsan ba ilaahay kugu soo aadinaya arimahaaga ilaahay waa kuu fududeynaya hadaad ilaahay ka baqdid fi sirri wal alam markaad kaligaa tahay oo meel qarsoon aad joogtid oo cid ku arkaysa aan la arag iyo marka dadka hor joogtida lagu arkahayo hadaa labada kolba ilaahay uga baqdi subhanahu wa ta'ala waxa aad sameynaysid iyo waxa aad i'tiqaadinaysid ilaahay subhanahu wa ta'ala umurahaga waa ku fududeynaya taqwa allah waxa ku helaysaa ilaahay dadka cadawga ah shartooda ilaahay inuu ka xifdiyo ilaahay kuwa cadawga ah ilaahay inuu ka badbaadiyo ka ilaaliyo ilaahay wuxuu leeyahay wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a haddaad sabartaan oo ilaahay ka cabsataan sirqoolkooda iyo hagarsigoodu waxba idin dhibi maayo wax uu idin dhibahay male inna allaha bima ya'maluna muhiit ilaahay baa waxay sameeyaan hareereeyay oo fashilinahaya maalin kasta oo cadawgu ay maleegaan sirqool iyo dhibaato ay dadka muslimiinta u maleegaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka badbaadinaya intaas oo muhaawalaat oo isku day ah ayay isku dayayaan inay baabi'iyaan oo ay fasaadiyaan laakiin dad muttaqiina oo ilaahay ka cabsanaya oo ku jira ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadna ilaahay ku xifdinaya jalla wa ala waxa kamida al-fawz bil janna wan najat min an-nar taqiinimada waxa lagu helaa oo taqwa allah lagu helaa qofku inuu cadaabka ilaahay ka badbaado وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إلهي سبحانه وتعالى إنه كبد بادي عذاب كيسا جننا وكل إمام وجننا إلهي سبحانه وتعالى أوهله سيدا أسا مركا وحوية التقوى الله كعبسقو أي قول لي ضحي فضائش واوين بشان مركا مالمها أقدم بيا وإنه كد دالنا إنه كسبنه استقامة يتوسناشو استغفار تآم بدنا توبتكين كآم بدنا وهي الأعمال بالخواتيم أعماش وحا لغو ختمه أقدم بيا أي عبرضته waxaa laga yaabaa qofku inuu soo feecnaa laakiin maalmaha ugu dambeeya uu fasaado oo qadka uu ka baxo waxaa laga yaabaa maalmihii hore inay uu xumaa laakiin maalmaha ugu dambeeya ilaahay intuu hanuuniyo khayrka uu waafaqo midkii intaas oo sana soo soomanaa inuu ka feecnaado asagu oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf uu siiyo oo dadka naarta lagu xireeyo lagu daro oo kuwa leelatul qadriga la waafajiyo ilaahay ku daro hadduu qofku toobad iyo ikhlaas iyo daacad uu ula yimaado ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisana si sax ku qaabilo ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo